ولطيبة طرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهتك يا قلب ورزقا صلي على محمد. munaasabada oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka macahadka Isra ee barashada diinta Islaamka iyo luqadaha ayaa lagu qabtay xarunta macahadka ee magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga waxaana ka soo qayb galay culimaa u diin, ganacsato, maamulka macahadka, waalidiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. Ardaydan oo gaarayay ilaa 15 arday oo wiilal iyo gabdho ayaa isugu jiray kuwa dhameeyay qayb ka mid ah barashada Quraanka Kariimka, diinta Islaamka iyo koorsooyinka luqadaha ee xilliga xagaaga waxaana goobta ay ku soo bandhigeen waxyaabihii la baray. Ardayda oo ah dufcadii u horeysay ee ka aflaxda macahadka Isra ayaa goobta lagu gudoonsiiyay shahaado sharaf ayaa waxyaabo kale oo dhiirigelin ah oo ka tarjumayay waxyaabaha ay barteen iyadoo xafladda abaalmarinada lagu gudoonsiinayay ay ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay. Sheekh Abu Dalha oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Ankara, Ustaad Axmed Cali Yuusuf oo ah maamulaha macahadka Isra ee barashada diinta Islaamka iyo luqadaha ayaa mid kamid ah waalidiinta ardayda ka qalin jabisay macahadka Isra ayaa munaasabada ka hadlay. Saud Umar Jaamac jazakallahu khayran si qurux badan ayuu salaadii noogu bandhigay. Waxaan aad u jeclaan lahaa marka la soo bandhigayo in sidii cuntadaba loo sameeyo oo qofna uu wax khaldo laakiin waqtiga kulul baan u maray inaad ka soo gaabsateen. Quraankan maanta aan iskugu imaanay weyniintiisa quraankan aad arkaysaan horta waa kalaamullaahi subhanahu wa ta'ala al-mu'jiz lilmuslimiin waxa weeyaan waa mu'jizada ugu weynayd oo Ilaahay muslimiinta uu ugu soo diray subhanahu wa ta'ala. muslimiintu kitaabka way weynayaan, muslimiintu kitaabka waa ay rumeeyaan maxaa yeelay waa kalaamullah. إلهي بان النبي محمد كسود شيء سوى جبريل السومري صلى الله عليه وآله وسلم. حفلة وحي كوساب سنة سوغوتين أرضي قياب كميدة أرضي ما شاء الله ممتاز نقضي أو مدكوما شنجز كل ما إيوه أرضي كلا أو لبي توان أرضي ترتم قرآن كقياب قلين إيه صدح أرضي أو سوغوتين أنت سكوجرتا ضمان والدين يمرت شرفتا كسود هذا حفلة سمر لبات وحن عصرنا كونجر inaad nala joogdaan nala dulqaataan inta yarta aan ardayda aan dhiirigelinayno aan shahaadooyinka siinayno waan rajaynaynaa insha Allah ta'ala dhowr mar in xafladda noocan amal u soo laabato idinkana waxaan ka rajaynaynaa guul insha Allah ta'ala dhamaantiin ilmahana Ilaahay subhanahu wa ta'ala saa rabtaan si ka wanaagsan Allah idin yeelo madrasadana muddada kooban ee furan tahay ardaydaas oo tala gashay inay aan dhiirigeliso waalidkii ka qayb qaatay aad u mahadsan yihiin macadkan al-Isra gaar ahaan aniga haddaan ka hadlo aad iyo aad baan uga faa'iiday waayo ciyaalkayga ayaan keenay ma sha Allah muddo waxay dhigtaan hadda 6 bilood ah mid walbana uu ka faa'iiday marka Ilaahay baa mahad iska leh. Ilaahay noo qadaray inaan imaadno maxadkani waxaan rajaynayaa inay ka sii badiyaan dadaalka inta macallimiinta iyo maxayada maamulkuna oo ay sii balaadhato insha Allah in Ilaahay ka rajaynaya. Macahadka Isra ee barashada diinta Islaamka iyo luqadaha ayaa horaantii sanadkan 2022 lagu aasaasay magaalada Ankara iyadoo xafladii furitaanka ee macahadkan ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga, culimaa u diin iyo mas'uuliyiin kale. Umar Caaqil, warbaahinta qaranka, magaalada Ankara, caasimadda waddanka Turkiga.